wafdi wasiiro ah oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Beledweyne iyagoo ka qayb qaadanaya howlaha loogu gurmanayo dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaadda webiga. Warbixin arrintaasi ku saabsan iyo wararkii u dambeeyay ee Beledweyne waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane. wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in ujeedada socdaalkooda uu yahay sidii ay u qaabi lahaayeen howlaha gurmadka ee ka socda magaalada Beledweyne. wasiir Goodax ayaa intaa raaciyay in ay tahay wax aan la aqbali karin in marka uu roob da'o uu xirmo garoonka Beledweyne. Waxa uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay sidii dhibaatada wax looga qaban lahaa. annagana imaashadeenu waa inaan idikaabno oo culayska idin haysto haddaan wax ka yarayn karna aan yarayno, xaaladda guudna aan isla ogaano. waxaa kaloo aan danaynaynaa haddaan nahay muxuu ahaa xildhibaanadii qaranka iyo xukuumaddii in aan ogaano dhibtan sida lagaga bixi karo. dhibkaan soo noqnoqday magaaladan Beledweyne 10 sanay mar fatahaad arki jirtay. waxay u soo dhacday inay 5 sano mar aragto, waxay u soo dhacday inay sanad walba aragto, hadda gu iyo deeray maraysa. marka inaan idla fariisano ogaano sida wax looga qaban karo iyo muxuu ahaa goorta la qaban karo. dabcan biyahan markay dhamaadaanba waa in horey laga bilaabaa. waxaan macquul ahayn in airportku markii roob da'ado uu xirmo laftirkiisa waa in shaqo laga bilaabaa. annaga xukuumad ahaan intaa waa naga go'an tahay inaan intaa aan budhig u noqonno. waana hubaa dadka reer Beledweyne in muxuu ahaa arrintaas aad ugu baraarugsan yihiin. wasiirka caafimaadka dowladda Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur oo ka mid ah wafdigii Beledweyne soo gaaray ayaa waxa ay ka digtay cudurro ka dhalan kara marka fatahaadda laga baxo. waxa ay sheegtay in iskaashi ay arrintaasi kala sameysay kan wasaarad ahaan hay'adaha qaramada midoobay. waxaa jiri doona dhibaato badan oo caafimaad ilaahay ha noo yareeyo. waxaan diyaar u nahay inaan gobolka iyo degmada iyo hareeraheeda dhan inaan la kaashano hay'adaha ka shaqeeya caafimaadka loogu gurmin lahaa cudur dilaaca. inta badan xaaladahan oo kale markay dhacaan yimaada sida shuban biyoodka oo kaleeto, shubanka koleeraha iyo cudurka duumada malaariyada. waa la wada hadalnay hay'adaha aan la wada shaqeyno. hay'ado badana meelaha lagu gurmado ceel jaal ay ka mid tahay xarumihii caafimaadka loo raray. hay-adahaasaan rabnaa inaan iyagana coordination fiican la sameyno. wixii qalab iyo daawooyin ay u baahan yihiin aan kala shaqeyno inta aan ka dhigno meeshii gurmadka laga maamuli lahaa. dadka jooga iyo dowladda federaalka iyo dowladda hirshabeelle iyo dadka deegaanka inaan iskaalmaysano. markaan tan ka baxnana insha Allah dhibaatooyinka mustaqbalka sidii looga hortagi lahaa oo xal waara looga heli lahaa. wasiir Goodax ayaa ugu baaqay dadka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan loo kala harin gurmadka loo sameynayo dadka Beledweyne ee fatahaaddu ay waxyeeleysay. ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan maanta Beledweyne meeshuu yaalla way arkaan. cid ka xigta ma jirto in gurmadku meel walba uu yahay oo uusan kala istaagin. waxaan ammaanayaa gobollada maamul goboleedyada Galmudug iyo Puntland oo runtii aan caadi ahayn. waxaan si gaar u ammaanayaa Puntland oo runtii kambeynka bilowday cala aqal dhinaca media aadan u ammaanayaa maxaa yeelay shucuurta dad badan ay kiciyeen ku dayashay mudan yihiin. aadan u ammaanayaa magaalada biyaha keliya maaha waxaa dhumay dadka noocay u noolahayn. haddii kii beer lahaa beertii biyaha fadhiyo